بسم الله الرحمن الرحيم. magacayga waa ayaan Saciid Nuur waxaan ahay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka degmada Dangoroyo. Halkan waxaan rabaa inaan uga dhawaaqo natiijadii hordhac ahayd doorashadii maanta ka qabsoontay degmada Dangoroyo. guud ahaan maanta waxa laga codeynayay ama doorashada loogu dareeray 12 seejo 8 seejo kamid ah waxay ku yaalaan banaanka degmada Dangoroyo 4 seejo kamidana waxay ku yaalaan magaalada Dangoroyo gudaheeda dadka codeeyay totalka guud ee numberka ka codeeyay degmada Dangoroyo wuxuu ahaa 7410 cod sidoo kale codadka ansaxay ayaguna waxa weeyaan waa 7209 codadka ansaxay codadka xumaaday waa 201 weeyaan guud ahaan doorashadii maanta waxay noogu soo qabsoontay si habsami leh oo wanaagsan ilaahay baana mataqaanaa uga mahad celinayna hadda waxaan rabaa inaan marka aan sheego sida xisbiyadu ay u kala heleen kuraasta waxaan ku horeynayaa xisbiga Runcad wuxuu helay 2 kursi ayuu helay sidoo kale waxaan ku xigsiinayaa shaqaalaha asagana wuxuu helay 1 kursi sidoo kale xisbiga saddexaad waa Sincad 6 kursi ayuu helay xisbiga afraad waa ka 9 kursi ayuu helay mideeye ayaa ku xiga asagana 3 kursi ayuu helay horseed ayaa ku xigta iyaduna 5 kursi ayuu helay ifiye asagana wuxuu helay 1 kursi marka sidaasina waa sida kuraasta loo kala helay guud ahaan doorashadu waxay noogu soo dhamaatay nooguna bilowday nabad iyo amni ilaahay baan uga mahad celinaynaa guul bayna noo ahayd maanta degmada Dangoroyo in doorasho laga qabto golayaasha deegaan loo dhaqaaqo